Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada janalka warar cusub waxaan inta badan kusoo qaadan doonaa haddii aan leedmo arrimaha Jubbaland iyo xiisadda siyaasadeed ee ka dhex tafatay dowladda federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ah oo ay ku jiraan mas'uuliyiin madax dalka ka soo noqotay. haddii aynu ku bilowno war goordhow ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan hay-adda duulista hawada Soomaaliya waxaa lagu sheegay in la joojiyay diyaaradihii duulimaadka ku tegi jiray magaalada Kismaayo xarunta kumeel gaarka ah ee Jubbaland 23 bisha September oo maanta ah ilaa 26 bishan. warar soo baxaya waxay sheegayaan in 26 bishan magaalada Kismaayo lagu qabanayo xaflad lagu caleema saarayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dowladda federaalka Soomaaliya diiday doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo natiijadii ka soo baxday iyo guud ahaanba dhismihii baarlamaanka Axmed Madoobe soo doortay. magaalada Muqdisho tan iyo xalay waxaa ka socday kulamo gaargaar ah oo ay qaadanayeen mas'uuliyiin ka tirsan xisbiyada mucaaradka sida Himilo Qaran, UPD iyo xisbiyada kale ee mucaaradka ku ah xukuumadda Soomaaliya, waxaana ay kaga arinsanayeen sidii ay kaga hortagi lahaayeen is-hortaaga dowladda Soomaaliya ay ku sameysay mas'uuliyiintan oo doonaya inay tagaan magaalada Kismaayo kana qayb galaan xafladda lagu caleema saarayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiyadaas waxay warbaahinta qaarkood u sheegeen in laga hor istaagay ka qaybgalka caleema saarka magaalada Kismaayo. xisbiga wadajir qoraal uu soo saaray Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu sheegay in qodobka 21aad ee dastuurka dalka in uu fasaxayo hawada isla markaana aanu loo adeegsan karin si gaar ah sida uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame qoraal uu soo dhigay bartiisa. waxa uu kaga hadlay arintii is-hortaaga ahayd ee Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii dowladda kumeel gaarka ee Djibouti lagu soo dhisay sanadkii 2009 lagu sameeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho. waxaa sidoo kale qoraal soo saaray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu kaga hadlay arintan. waxa uu sheegay in uu ka soo horjeedo tallaabada dowladda federaalka Soomaaliya ay u qaaday is-hortaaga lagu sameeyay madaxweynihii dowladda kumeel gaarka ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. waxaa sidoo kale warar soo baxay ay sheegayaan in Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay ka qayb gali doonaan xafladda caleema saare Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe isla markaana ay ka mid yihiin mas'uuliyiinta la casuumay. xisbiga Himilo Qaran oo uu gudoomiyaha u yahay Shariif Sheekh Axmed waxa ay soo saareen war-saxaafadeed ka koobnaa 2 bog. waxa ay sheegeen inay ka xun yihiin dhacdadii ku dhacday Shariif Sheekh Axmed oo gudoomiyahooda ah, iyagoo sheegay in la dooro ama ku baaqay in la dooro xorriyadda dhaqdhaqaaqa dadka mucaaradka ku ah dowladda federaalka Soomaaliya sida lagu yiri qoraalkan oo dheeraa. dhanka kale xisbiga UPD ee uu hogaamiyaha u yahay Xasan Sheekh Maxamuud iyana qoraal ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay ka xun yihiin dhacdadii is-hortaaga ahayd ee lagu sameeyay Shariif Sheekh Axmed. sidoo kale waxay soo jeediyeen in dowladda federaalka Soomaaliya aysan qaadin tallaabooyin ka dhan ah qorshaha caleema saarka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ay xor u yihiin in ay aadaan sida ay hadalka u dhigeen. dhanka kale war ka soo baxay Jubbaland waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay cunaqabateen dhan waliba maamulkaasi ay saartay, sidaas awgeedna waxa ay beesha caalamka iyo dowlad goboleedyada kale ka codsadeen in arrimahan ay il gaar ah ku hayaan maadaama maamulka Jubbaland ay u arkaan arrin lagu cuuriyaaminayo horumarka deegaanada maamulkaasi inay qaadiso dowladda federaalka Soomaaliya sida warka lagu yiri. waxaa gebi ahaanba diyaaradaha la faray aadan magaalada Kismaayo 24 saac ka hor inay isdiiwaangeliyaan. ha yeeshee war kale oo ka soo baxay hay-adda duulista hawada Soomaaliya waxaa lagu sheegay in aanu jiri doonin duulimaadyo diyaaradeed oo magaalada Kismaayo tagi doona 23 bishan oo maanta ku beegan ilaa 26 bishan. waqtigaasna waxay ku beegan tahay sida warbaahinta qaarkood ay daabaceen xilliga la caleema saarayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. mas'uuliyiin ku sugan magaalada Kismaayo qaarkood waxay warar cusub u sheegeen in xafladda Axmed Madoobe ay dhici doonto isla markaana ay ka qayb gali doonaan mas'uuliyiin kala duwan. Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu qorsheenayaa sidii uu magaalada Kismaayo u gaari lahaa isagoo ka dhiga fureysanaya amarka lagu soo rogay shirkadaha diyaaradaha ee taga magaalada Kismaayo maadaama uu ka mid yahay mas'uuliyiintii Axmed Madoobe uu casuumtay.
xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalk Soomaaliya oo horeyba goobjoog ugu noqday doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo waxay dhankooda magaalada Muqdisho ka wadaan abaabul ku aadan sidii ay u aadi lahaayeen magaalada Kismaayo sida xildhibaanada qaarkood ba aynu ka soo xiganay. qaar ka mid ah dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda waxay ku tilmaameen qorshahan ka soo cusboonaaday Jubbaland inuu yahay mid hordhac u ah loolanka doorasho ee la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya sanadka 2021 maadaama xisbiyada mucaaradka ah iyo xukuumadda Soomaaliyaba ay hadda bilaabeen in ay loolan adag sii galaan. waxaa la sugaaba waa jawaabta beesha caalamka sida xildhibaanada qaarkood iyo xisbiyada mucaaradkaba dalabaadkooda ay ku dirayaan go'aanka ugu dambeeya ay ka qaadato. waxaana horey dowladda federaalk Soomaaliya iyo beesha caalamkaba ay qaateen go'aan mideysan inkastoo doorashada Kismaayo ka dhacday kadib aanu wax wara ka soo bixin. dhanka kale magaalada Kismaayo wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in ay socdaan abaabul kale oo iyana ay wadaan Cabdirashiid Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar oo iyana doonaya inay qabsadaan xaflad lagu caleemo saarayo oo magaalada Kismaayo ka dhacdo si lamid ah waqtigii doorashada magaalada Kismaayo ka socotay. waxayna doorasho ku qabsadeen guriga Cabdinaasir Seeraar waxaana maalin kadib in uu madaxweynaha Jubbaland ku dhawaaqay Cabdinaasir Seeraar oo bari saaxiib dhow la ahaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe maalmihii la soo dhaafay. waxay labadan dhinacba wadeen waa Cabdinaasir Seeraar iyo Cabdirashiid Xidig hub urursi ay ka sameynayaan magaalada Kismaayo iyagoo qoranaya qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada ku sugan sababo la xiriira hanjabaadii Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu u jeediyay ay ahayd in magaalada aanu la joogi doonin dad la sheeganaya madaxweynenimo sida uu hadalka u dhigay kadib markii magaalada Kismaayo shir jaraa'id uu ku qabtay arrimahan uu kaga hadlay. waynu arki doonaa wixii ka soo kordha haddii alla idmo halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa wixii wararkaasi iyo guud ahaan dhacdooyinka gudaha iyo dibaddaba ku saabsan. haddii janalkan uu kugu cusub yahay fadlan subscribe saar oo riix gambareelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee hela warbixinada wararka iyo macluumaadka aynu halkan ku daabacno. waad mahadsantihiin.